الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال صلاة قروح دي معان كده يينا دردمسي كلمات كأفكا كسو بحيا واحد كد ريمسا خشوع. ولذلك يا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحي النقور رمي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وحلي باليدتك مؤمنين تأه وكويدتك مؤمنين الإمام إلهي سبحانه وتعالى وحو كسفيي وقوى الصلاة مركيتو كان يانكو خشوع. الخشوع دو محيتي خشوع دو وحويا إنو قفك استرنسي يقع سيد إلهي وإنو قفك تذل يليماتو إلهي سبحانه وتعالى يسكدر ليه وإنو قفك مشغول لدي البابات الشياطين تكسو فريس قلبكيسي وساسي كسو فريو إنو اسكعليو وإنو قفك يقين سدا إلهي سبحانه وتعالى إنو هرتاقي لفقي الله إلهي سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الصلاة وحي نقطي دواد قفك مسلمك رسولك صلى الله عليه وسلم وكلها ريحنا يا بلال نوغو راحي ساد ردد با إلهي سبحانه وتعالى مركي دباتا نوغو وحي نوجي دي إنه الصلاة وعرنا سيدا روضونتها نقطة ضيح مدواتك على المدواتك أبارتها مركي دعضو صلاة وحي قلوبة بلآذنك أي وحي النقانيسة دو ومركا خشوع ديد التي ما ديد عالم وين ولا دغو دكتور جاسم المطوع ايا وحو دحay waxaan ka qayb galay sinana nin gaala u jeedin ka gaala wuxuu ka sheekeynayay sidoo qofku stresska iyo murugada iska ilaalin lahaa wuxuu ku soo khulaasay afar qodob koowaad wuxuu dhahay ninka doctorka gaalka ah wuxuu dhahay afar qodob uu qofku murugada iska ilaalin kara afarta qodob waxa kamid ah inuu qofku hurdo aad u far badan seexdo waa inuu qofku 15 mirir siya نفتيسا إنه مشغولة بالآدم كفرة أما مشغولة إنه سكحرة ونفتيسا نصية قف وينه جمع سمي جركيسا وجمع سيا أما شقاق قبطة أما وحو قبطة جركيسا دالية ويا وحو كهلي مروجا إنه قف أسانا يؤمن كوسو خلاصي واحد أنا قدن لا يوحو رهي تان وحا هيسمو منيتو كلية وحاول يا خشوع الصلاة وكو خشوع الصلاة ويا مركا قف قاله أو إلهي أمر من سنين أيا وحو قري شوعدا إلي تهي الدوادة قفك. ولذلك أيا ولا لي المركا نيقنو دادكي وناكسنا الصالحين تاها أين خيرك قديني نيقو الريمة كانوا إيقنو الصحابة دي تابعينتي وحبضا والله وعجويسا وحان سوق هذا يا قصة قصيرة. عروة بن الزبير وحاد على الزبير وأحد المبشرين بالجنة وصحابة مد كميدا طمانكي صحابي الجنة اللي بشاري مد كميدا ويا حلقة سو نقلية مالي مالمها كميدا أياح لقطة حمقة قدعي markaasaa dhaqaatiirtii dhammaantii markay isku yimaadeen waxay dhaheen lugta in la jaro weeyaan xal kale ma jiro. Curwa wuxuu dhahay waxa uu dhahay Curwa maadaama lugta lagu jarayo waa in si lugta loo gooyo waa in lugta la suuxiyo waxyaabo bari hore la isticmaali jiray waxa kamid ah lagu suuxin jiray in sharaab iyo waxyaabo qofku ku suuxay in la siiyo waayo dawada casriga imika hadda soo baxday ma jirin. markaasaa Curwa wuxuu dhahay mid baa suuxitaankayga waa hal mid baan sameynaya wuxuu dhahay Curwa haddaan hal mid sameeyo dhammaan jirkayga waxa lagu sameeyay anigu ma ogaado markaan shayga galo aan guda galo lugta iga jara dareenku iga taga markaas la maxay wuxuu dhahay markaan salaada galo aan ilaahay subxaanahu wa ta'ala isla hortaago dhammaan wax Allah wixii mashquula waa iska xidhaa waxaan xaqiiqsan baan dareema in ilaahay subxaanahu wa ta'ala hortaagani saadaradeed taas waxa ii sababta jirkayga waxa lagu sameeynayo in aan dareemin markaan salaada xidhaa aan sujuudo lugta iga jara dareemin baa sidii baa la sameeyay marka walaalayaal dadka ay rabnaa inay ku dayno dariiqoodi iyo wanaagoodi iyo khayrka aan kaga dayano ay mareen oo kuwa ay jirkooda waxa lagu sameeynayo aan dareemin iyadoo jirkooda la tadabay ikhwaani fillah qof kasta waxaad qiimaysaa salaadaada marka tukanaysid waa sidee 10 mirir ama 8 mirir ama 7 mirir ilaahay subxaanahu wa ta'ala la faqaysa la hadlaysa tukanaysid mashquulada shaydaanku ku soo furayo waswaasku ku soo furayo ma iska xidhaa adigoo shaydaan aan maskaxdaada soo dhaxgelin salaada ma dhamaysto ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa wuxuu noo sheegay inna shaytaana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa wuxuu ku dadaalayaa inta salaada aad ku jirtid inaad kalimaadka macaanka aad ku hadlaysid quraankan aad ku tukanaysid inaad dareemin wuxuu mashquul ku soo furayo albaabada badan ku soo furayo maskaxdaada si aan maskaxdaadu u joogin oo salaada markii tukanayso wax khayraha bay raatay aad uga faa'iidin taasu shiidaan kula ku dadaalaya culimada muslimiinta kamida salaada sideebada ugu khushuucda markaas wuxuu dhahay waxaan ugu khushuuca markan safka saa u soo istaago dhammaan mashquulada igu furorta waa iska xidha waxaan xaqiiqsaday ilaahay subxaanahu wa ta'ala hortaag aan suuraysta kaanaba inaan maxsharkii maalinka qiyaam taaganay ilaahay subxaanahu wa ta'ala la faqayo kii midigtayga xigay kii midigtayga xigay kii hore kii dambe la dhaqaajay kaliya meesha ku soo haray markaas waxaan suuraysta inaan kaliya taagan ilaahay subxaanahu wa ta'ala la faqayo
kadib waxa iga xidhma dhammaan mashquulada qalbiga shaytaanku kusoo furayo ayaa dhammaantood iga xidhma dadka aan rabno walaalayaal in salaadooda kale ay noqoto amba ay kasii wacnaato waa rasuulka sallallahu alayhi wasallam aad buu salaada ugu raaxin jiray markay dhibaata ay ku dhacay idaa xasabahu amrun salla markay dhibaata amba arrin ku timaado salaada ayuu carrirtay salaada waa ku raaxin jiray bal wuxuu dhahay salaadu waa qurratu cayni waa indhaygtay ku togsada walaalayaal qofka soo inaga mid ah isweydiiyay salaada waa sidee salaadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu sheegay ma tahay waa salaad waxaad ku dhamaysatay iyadoo mashaaqili qalbiga isla hadlayo ayaa salaada ku dhamaysatay ugu dambeyn walaalayaal aniga iyo adigu iyo dhammaanteedba adduunka waynu ka tagay إلهي سبحانه وتعالى أين هرتقنا وحا أغهر مالك قيامنا لغا حسامي دوننا والصلاة قفك الصوء نقمي ذا ورا ليلها كنت ذا الصلاة دي سيئون نقول لهي صلاة حبيب كينا محمد صلى الله عليه وسلم وتكون شروسي فيه هنقول السلام يا دمان ولا الله يداوانا channelka iyo social media daawani iyo barta Facebook aan ku leeyahay iyo Instagramka Telegramka dhammaan baraha bulshada meelaha isticmaala kuwa iga daawanay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayn inuu barakeeyo dhammaan muslimiinta inuu barakeeyo salaadii xabiibkeen Maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu sifeeyo noqoto Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaa salaadeenu salaad khushuuc badan inuu noqoto salaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ku raali gelinno inay noqoto